My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. I don't care about the economic. Guddiga maamulo shirkadda Twitter ayaa ogolaaday in billionaire Elon Musk uu kula wareego lacag dhan $44 bilyan oo Twitter. Musk oo ku dhashay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa 14kii bishani soo bandhigay qorshaha uu kula wareegayo shirkaddaasi ka shaqeysa xidhiidhka bulshada, waxaana uu sheegay inay leedahay awood ballaaran oo uu dunida uga faa'iideyn doono. Waxa uu ku baaqay isbeddel ballaaran oo ay ka mid yihiin meesha laga saaro xayiraadda macluumaadka iyo xidhiidhda ciwaanada been Twitter ayaa markii hore diiday qorshaha Musk, balse waxa ay shirkaddu hadda weydiisan doontaa saamileyda inay ansixiyaan heshiiska iibka. Elon Musk ayaa ninka ugu taajirsan caalamka sida ay shaacisay jariiradda Forbes, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay $237.6 bilyan oo dollar. Waxa uu leeyahay shirkadda Tesla ee samaysa gawaadhida korontada ku shaqeeya iyo shirkadda SpaceX ee sahaminta hawada sare. Xorriyadda hadalku waxa ay gundhigu tahay dimuqraadiyadda shaqeynaysa. Twitterna waa faras magaalaha digitalka ee looga doodo arrimaha muhiimka ah mustaqbalka aadanaha, ayuu Musk ku sheegay qoraal uu ku shaaciyay heshiiskaasi. Twitter ayaa in muddo xoogga saaraysay ka hortagga wararka been abuurka ee lagu faafiyo. Sanadkii la soo dhaafay waxay qaadatay go'aankii ugu adkaa kadib markii ay xayirtay ciwaanka madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump oo ay ku eedeysay kicitaan rabshado. Let me ask you, should I keep the Twitter going or not? Keep it going? Inkastoo dad badan ay soo dhaweeyeen Musk uu la wareego shirkadda Twitter, haddana Trump oo isniintii la hadlay telefishinka Fox News waxa uu sheegay in aanu ku tala jirin inuu ku soo laabto shabakadaasi, balse uu xoojin doono tiisa gaarka ee Truth. Ma cadda shakhsiga uu Musk u dhiibi doono maamulka Twitter, maadaama uu sheegay in aanu kalsooni ku qabin kooxda hadda maamusha ee uu hogaamiyo Parag Agrawal. Shirkadda Twitter ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa maalintii isticmaali jiray in ka badan 200 bilyan oo macaamiil ah, kuwaasoo intooda badan ku noolaa dibadda waddanka Mareykanka. Hase ahaatee saamiga shirkadda ayaa hoos u dhacay sanadkani. Rashid Baar, Real TV.